kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybta 434 ee barnaamijka tubta nabadu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faysa, waxaan jeclahay inaan ciid wanaagsan oo hordhaca u rajeeyo dhegaystayaasheenna. Ciidul Fitri waxay ku dhiirigelisaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay u adeegsadaan awooddooda kor u qaadista nabadda iyo midnimada iyadoo loo marayo dabaaldegyada ciidda iyo in kaalin wanaagsan laga qaato arrimaha bulshada. aad iyo aad cabdicasiis, maantana barnaamijka tubta nabadda waxaan kaga hadlaynaa awoodda baaxadda leh ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee u leeyihiin inay horseedaan isbeddel. waxay gacan ka geysan karaan yareynta kala qaybsanaanta ayagoo sidoo kalena xoojiya helitaanka nabad waarta oo ka hirgasha bulshada dhexdeeda. sida ay tilmaamaysa qaramada midoobay 10 qof ee Soomaali ah 8 ka mid ah ayaa da'doodu ka hooseysa 35 sano. in ka badan 70% bulshada Soomaaliyeed waa dhalinyaro. wiilashan iyo gabdhahani dhalinyarada ah ma ahan oo kaliya mustaqbalkii dalka, balse waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhismaha nabadda iyo dawladnimada Soomaaliya. haddana iyadoo ay jirta awoodda dhanka tirada ay leeyihiin, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wajahayaan caqabado baaxad leh oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan baahsan iyo fursadaha ka qaybgalka siyaasadda oo xadidan. aad iyo aad ayay muhiim u tahay in dawladda, bahwadaagta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ay mudnaan gaara siiyaan barnaamijyada awoodsiinta dhalinyarada, isla markaana aqoonsadaan dadaalada waxtarka leh ee dhalinyaradu ay ku biirinayaan dadaalada nabadda. haddaba si aan arrintaani wax badan uga ogaano, waxaa maanta marti noogu ah barnaamijka tubta nabadda Jamaal Maxamed Cabdulaahi, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya, iyo Yuusuf Xasan Cali Gacal, madaxa fulinta hay'adda Community Development Organization oo ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. soo dhawaada labadiinaba. agaasime Jamaal, haddii aan adigu kugu bilaabo, maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kaalinta ay kaga jiraan nabadda iyo dib u heshiisiinta? waxa weeye xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed waa xaalad rajo gelin ah oo rajo ka muuqato, fursado badanna ay jiraan, sidoo kalena caqabado badan ay maaragtay ku hareeraysan yihiin. dhalinyarada Soomaaliyeed waa bulshadeenna ama dadkeenna waddanka qaybta ugu badan, 3 dalool 2 dalool ama ka badanba waxaa la qiyaasaa inay dhalinyarada yihiin 35 ka yar. marka dhalinyaradu waxa weeye waa waddankan dadkiisa inta ugu badan waa dhalinyaro. xaaladooduna waxa weeye xaalad runtii ay aad u baraarugsan yihiin. doorka ay ka qaadan karaan nabadeynta waa door runtii firfircoon oo muuqda, hase yeeshee la wada dareensan yahay inaan sidii ahayd looga faa'iideysan oo bulshada Soomaaliyeed ama dowladeennuba ayna sidii la rabay u wajihin, oo la gaariyay in dhalinyaradu ay dadaaladii fogaa ee 30 sano soo socday ee dib u heshiisiinta lahaa, dowlad dhiska lahaa, isu keenista dib isugu soo celinta bulshada burburka kadib ahayd, dhalinyarada door la rabay sidii la rabay loogama qayb qaadan. laakiin sanadahan dambe intii social media uu 10 sano ugu dambeysay social media uu soo xoogaystay ama 6 sano ugu dambeysay, waxaa muuqatay oo dadku aysan indhaha iska tirayn, dowladda iyo shacabba, in loo baahan yahay doorka dhalinyarada ayna muhiim tahay in laga faa'iideysto. agaasime, maxay yihiin tallaabooyinka ay qaadayso wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya si awood loogu siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed kor u qaadista nabadda? wasaaraddu howlo badan bay soo qabatay oo runtii aad u balbalaaran, aanan dee halkan barnaamijkan kusoo koobi karin. laakiin howlaha hadda aanu gacanta ku haynay kuna hayn doono, aanuna dee sii ballaarin doono, waxa weeye barnaamijyo ay ka mid yihiin inaanu jamhuuriyadda markii ugu horreysay aanu samayno oo aanu ka dhaqangelino qaraarka dhalinyarada nabadda iyo amniga, oo ah qaraar caalami ah oo Soomaaliya aysan hore uga faa'iideysan dhalinyaradeeda inay meel mariyaan barnaamijka dhalinyarada iyo nabadda amniga ee loogu soo gaabiyo YBS. barnaamijkaasi wuxuu dhalinyarada siinayaa gobolladoo dhan buu ka socdaa, uu kana sii socon doonaa. dhalinyarada Soomaaliyeed inay talo iyo fikir iyagu ay leeyihiin oo maankooda ka soo baxa
kana ay arkaan mustaqbalkooda inay kaga qayb qaataan nabadeynta dhalinyarada. Sidoo kale waxaa jiray sanadihii oo socda weli barnaamij la dhaho xasilinta. barnaamijka xasilintu waxaa door weyn ku leh, iyadoo dowladdu ay xilqaan weyn iska saartay sanadihii ugu dambeysay, waxaa door weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb muhiima ka ah. Sidoo kale waxaa jira isboortiga ama ciyaaraha oo awal Soomaaliya horay iska ahayd tartan, inkastoo bulshadu isugu iman jirtay, laakiin wasaaraddu hadda waxay wadaa inay isboortiga ka dhigto waxa weeye hab lagu dhaliyo ama qalab keeni kara nabadda, isdhexgalka iyo wanaagga bulshada. waxaa sidoo kale wasaaraddu ay ka shaqaysaa in dhalinyaradu laftigoodu ka qayb qaataan nabadeynta. ugu dambeyn, maxay yihiin caqabadaha ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed, maxayse ka qabanaysaa wasaaraddu? caqabadaha ay wajahayaan waxaa kooba ka ah inaan fursad loo siin inay ka shaqeeyaan nabadeynta badana. wasaaraddu waxay u dagaalantaa ama u taagan tahay, hadday tahay saaxiibada caalamiga, hadday tahay bulshada rayidka, hadday tahay ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, ama dowladda dhexdeeda, in ay mar kasta dareensiiso dhinacyada kala duwan in dhalinyaradu ay door ku leedahay nabadeynta, ayna yihiin cidda ugu badan ee ku dhibaatoota, iyagu ka dhimanaya, ku dhaawacmaya colaadaha qabaa'ilka ee marmar ka dhaca dalkeenna ama xasaradaha kala jira. waxaa kaloo caqabad ah doorkoodu ma cadda. waa in door cad la siiyaa oo ay mataqaanaa si ay xalka qayb uga noqdaan. ma helaan dhalinyaradu ururada dhalinyarada, hay-adaha dowliga ee dhalinyarada arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya ay wasaaraddu ka mid tahay laftigeedu waxay la daalaa dhacaan taageero la'aan. waxaa kaloo jira caqabad kale oo ah dhaqankeena, oo Soomaalidu waxay lahayd xeer waxa weeye geed hoostii baa la fadhiisanayay, inta imaanaysay xalka nabadeynta raadinaysayna waxay ahayd badi dadka waaweyn, oo taasaa bulshada Soomaaliyeed weli saameynayso. looma arko dhaqan ahaan dhalinyaradu inay mataqaanaa nabadeynta qayb ka noqon karaan. qorshayaasha caqabadaha waxaan uga qabanana waxa weeye in dhalinyarada waxa weeye dhabi heshiisiinta, barnaamijka dhabi heshiisiinta dowladdu way garabsatay. barnaamijka dhabi heshiisiinta ee dowladda Soomaaliya hogaamiso xukuumaddan dan qaran, dhalinyaradu qayb bay ka yihiin lixaad leh, oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dhalinyaradu ay ka wada shaqaysaa. door halkaasay ka dhalanaysaa marka in door la sameeyo. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Jamaal Maxamed Cabdulaahi, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya, oo marti noogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda. dhegaystay haddii aad hadda nagu soo biirtay, weli waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka Tubta Nabadda, balse iminkana aan u gudubno waraysi aan la yeelanay Yuusuf Xasan Cali Gacal, madaxa fulinta hay-adda Community Development Organization CDO oo ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. wuxuu ugu horreyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhismaha nabadda. horta dhalinyarnimo idaa fursad ah, iyada ayaa xoog ah, idaa ah caqli curdan ah, haddii ay aqoon leeyihiinna kasii badanba, aad bay uga sii badan tahay. waxaa kaloo jira taas markii fursaddaas laga yimaado, dadka dhibka ku dhacaya ama dhibka geysanaya ama dhibaatadu dhex marayso oo ayaga dartood wax u qarrimayaan waa dhalinyarada. marka dhalinyarada fursadna waa haystaan, dhibka dadka ku dhacayana waa iyaga oo xalka u baahan, macnaha iyaga weeyaan. marka waxa waaye fursaddaas iyo inay dhibaniga ayagu ay yihiin, haddana mustaqbalkii dadka ay yihiin, macnaha ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka intaba ay yihiin, qasab waaye waxa waaye dowladdu inay mataqaanaa arrimaha noocaas ay nadaamiso mustaqbalkooda, oo dhabaha dowladnimada ay saarto. fahmaysaa? marka fursado badan baa jira, weliba dhalinyaradu haddeertaan aad bay ugu heelan yihiin. dowladnimada xoogaa waa la fahmayaa, inkastoo dowladda Soomaaliyeed heerarka kala duwan ay tahay, heer qaran iyo heer dowlad goboleed ilaa dowladaha hoose, si nidaamiyah oo caadi ah aysan mataqaanaa barnaamijkaas aysan u wajihin, oo dhalinyaradu inta badan mataqaanaa bawsi iyo dadaaladooda iyo xafiisyada ay tagaan iyo xogaha ay hayaan iyo adduunka ay wax ka akhriyaan ay ku howlgelayaan. waxa waaye haddana waxa waaye maanta way u diyaarsan yihiin oo aqoon bay leeyihiin oo faham fiican bay haysaan. macnaha sanado badan oo hore meelihii ay joogeen dhalinyaradu ma joogaan. haddana waxa waaye dhanka kale problem weynaa jiro. berigii hore dadka Soomaaliyeed journalistka ama haddii kale
aaladaha ay wax isugu gudbi jireen warbixinada waxay ama gabay ahayd ama idaacadda tartiib ahayd laakiin dadka social media iyo barihi bulshada iyo wax daran oo dhan ay yihiin oo raba dadka in laga badbaadiyo marka waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in la geliyo maxaa kugu dhaliyay shakhsi ahaan inaad noqoto qof nabad u ololeeya mase noo sheegi kartaa guul aad xaqiijiseen horta anigu dadka colaaddu aydoo socota ku dhashayana haddana ku barbaaray haddana wax ku dhex bartay macnaha adduunkana hadda soo arkayo waddamada hadda africa oo dariska nala ah iyo asia sida bakistan oo kale oo kusoo bartay nabadda iyo dowladnimadu waxa ay soo arkay macnaha oo soo baraarugay ayaan ahay marka adoo colaadda ku dhasho ku barbaaray oon habeen mataqaana aad nabad ku ledin oo mar walba la qaxayay ama qolada aad ka dhalatay laga qaxayay ama la is eryanayay haddana meelahaas aad tagtay waa dareemaysaa nolosha iyo nabadda waxa ay tahay dowladnimada waxa ay tahay mustaqbal baa kugu muuqanaya macnaha dalkaaga markaa dib u soo egtay marka aad baad u xanuunsanaysaa macnaha inaad facaa ka hartay in inkaari kugu dhacday inaad dhibana tahay sidaan inaysan nolol ahayn qasabna inay tahay in laga baxo guulaha aan gaar raba waxaa ka mid ah degmooyinka dhallinyaradoodu aad bay isu yaqaanaan bahda waxbarashada ayaa is yaqaan bahda sportska ayaa is yaqaan si fiican isu garanaya isu wada shaqaynaya dhallinyarada ganacsatada ah oo hadda dhallinyarada ugu xoog badan ganacsatada oo dad waaweyn ma ahan waa la iswacayaa macnaha waxaa la leeyahay labada reero isdiriraysa dhallinyaradooda oo labada daraf ah oo isgaranaya oo saaxiibo ah oo dan wadaagta ah ayaa isu soo baxaya okay ayadoo dhiiggii la kala badbaadinayo ee haddana meesha waxaa ku jirta markay ganacsata yihiin isu socodka ganacsiga xirmaya kow waa khasaaro qasab wey inaan mataqaana ka hortagno yuusuf ugu dambayn sidee ayay dhallinyaradu uga qayb geli kartaa gaarista go'aamada dalka ee saameynaya mustaqbalkooda qofka marka la diyaariyo tacliin ahaan la diyaariyo oo la abaabulo qofka ilaahay kuma samid isagoo waxa meesha u socda garanaya waajibaadkiisa garanaya dastuurka maarta si fiican aqoon ilaa heer fiican oo ka haysto siyaasadda dowladda fahamsan tallaabooyinka uu qaadayo dhan u xadidan yihiin maarag ayaa qofku macnaha qaybgalkiisa iyo inuu qayb ka noqdo talada dowladnimada lagu dhisayo ama mustaqbalka arrimaha lagu hagaajinayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo geeska Afrikaba ayuu qayb ka noqon karaa laakiin qofku si kastoo mataqaanaa iskuul u soo maro ama jaamacad u soo maro ama qof caqli badan yahay haddii waxa loo nadaamin oo loo kala ratimin oo loo kala aqoonin waxaan waa waxaasna waa waxaas oo dadka la diyaarin in tacliinta asaasiga ah oo dalka ka jirta lagu soo daro tacliinta madaniga ah barashada dalka lagu soo daro dastuurka lagu soo daro ilaahay kuma soo diido waxyaabahaas oo dhan qofku markaas ayaa ka qaybgalkiisa oo macna samaynaya marka qasab waxa ah qofka marka hore in la tacliimiyo salaad waxa tukada qofkii garanaya hadiis la jiray nin salaadiisa ku ciyaaray nabigu waa u toostoosiyey waa ku celiyey hadba waa mataqaana practical qaab u bara macnaha qaab mataqaana oo ficiliyan ah buu u baray markaan waxaan qabaa dadka in la tacliimiyo la abaabulo sharciga la baro siyaasadda dalka la baro waxaasoo dhan dadka la fahamsiiyo dadku markaas waxay noqonayaan dad wax soo saar leh naftooda iyo dadkooda iyo deegaankooda wax u qaban kara qarankana wax u tari kara aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa yuusuf xasan cali gacal madaxa fulinta hay-adda community development organization oo ka howlgasha deegaanada galmudug balse iminka dhagaystayaal kusoo dhowaada nabi ammaan ay ku luqeynaysa fanaanada xaliima khaliif magool
aan intaas uga gudubna dhageystayaal nabi ammaankaasi ku luqeynaysay fanaanada magool waxay ugu dambeysay barnaamijkeennii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan